gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali ayaa la saftay oo dhinaca saaray madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay oo ku eedeeyay in gudoomiyaha maxkamadda sare in uu la saftay madaxweynaha xilli uu taagan yahay muran baasan oo ka dhex xaloolsan xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka Somaliland xisbiyada mucaaradka ah ayaa si weyn ugu biyadiidan xubin kamid ah komishanka cusub ee Somaliland kaasi oo si toos ah u shaqo bilaabay loona doortay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee Somaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa dhawaan komishanka cusub ee muranka badan ka taagan yahay ku hordhaariyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi si ay u gudagalaan howlahooda shaqo talaabadaasi oo uu ku tilmaamay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe miduu gudoomiyaha maxkamadda sare isagoo indhatiray diidmadoodii iyo muranka ka taagan xubnahaasi komishanka isla markaana uu la saftay madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe oo arintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay maamul gaar ah oo iyaga ku kooban ay sameysteen wuxuuna yiri maalintii dhaweed ee uu muranka jiray waxaan u tagay gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ku yiri oo aan u sheegay 6 qof ee la soo doortay sharcigii lagu soo abuurayna ma fiicnayn waana la isku haystay ee adiga hadhaarin baan ku yiri ayuu yiri gudoomiyaha waxaana intaas ku sii daray Engineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyihii aanu sidaa ku kala tagnay isagiiba u soo labistay oo dhaariyay taasina waxay ku tusaysaa ninkii ilaalin lahaa dastuurka dalka ee madaxweynaha qaban lahaa isagiiba dhaariyay dabadeedna intaan telefoon u soo diray baan ku yiri dal gaar ah baa samaysateen ee bulxuduudihiisa ii soo sheega maalmihii ugu dambeeyay waxa cirka isku sii shareeray xiisadii ka dhex xaloolsaneed xisbiyada mucaaradka ee Somaliland iyo madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Mudane Muuse Biixi Cabdi kadib markii xisbiyada mucaaradku ay iska diideen kana hor yimaadeen shir degdeg ah oo uu ugu baaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi